بسم الله الرحمن الرحيم waxaan idin salaamayaa dhammaantiin cid kasta oo i daawanaysa oo muuqayga iyo taqaana magacaygu waa Anwar intaas ka bacdi waxaan saaka haddii ilaahay idmo halkan baaq nabadeed uga jeedinayaa dadka walaalaha ah ehelka ah ee ku dagaalamaya koonfurta gobolka Sool labada beelood ee walaalaha marka koowaad waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada dagaalka joojiya dhiigga islaamka ee daadinaysan ee ilaahay xaaraantinimeeyay joojiya intaas ka bacdi dhalinyarada deegaanka Sool Sanaag iyo Cayn meel kasta ay joogaan iyagana waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan sidii colaadda loo damin lahaa colaadan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa inagu imtixaamaya waa inagu eegayaa ka dhalinyaro ahaan ka culimo ahaan ka waxgarad ahaan ka waayeel ahaan ka ninkarmood ahaan intaba ilaahay waa inagu eegayaa dhalinyarada markaa waxaan ugu baaqayaa gaar ahaan dhalinyarada magaalada Laascaanood in ay ka qayb qaataan sidii loo damin lahaa colaadda qof kastoo adigoon lagu dirin adigoon cidi waxaan ku yeedhin ilaahay dartii uga qayb qaado sidii ay colaaddaas u damin lahayn dhalinyarada markaa waxaan leeyahay aan ka qayb qaadano sidii loo damin lahaa colaaddaas dadka walaalahana sidii loo heshiisiin lahaa dhalinyaradu ha isu keento dhalinyarada labada beelood ha isu keenaan sidoo kale haweenka waxaan iyagana ugu baaqayaa inay gabdhuhu isu keenaan gabdhaha labada beelood in la joojiyo waxaan kale oo ka digayaa dadka ka qayb qaadanaya colaadan ee kaga qayb qaadanaya qoraalka iyo fiidiyoyada iyo sawirrada ilaahay ka cabsadaan marka koowaad qof kasta waxaad ogaataa waxaad colaadda ka qayb qaadato in ilaahay la hortagi doonto maalinka qiyaame haddaad qoraal kaga qayb qaadato haddaad fiidiyo kaga qayb qaadato iyo haddaad sawirra kaga qayb qaadato intaba ilaahay waa la hortagi doontaa iyo haddaad dhaqaale kaga qayb qaadato intaba ilaahay waa la hortagi doontaa arrinkaas laga digtoonaado waxyaabaha dadka kicinaya shucuurtooda kicinaya qoraalada iyo fiidiyoyada iyo sawirrada ana social media la soo dhigayo ilaahay ha laga cabsado oo ilaahay ha laga cabsado ha laga daayo dagaalkan waad ogtihiin waxa uu baabi'iyay faamil badan qoysas badan ayaa maanta waxaan ku hooyooyin badan baa ku gooblamay dagaalkan waxa uu ku dhimanaya hooyooyinkii waxa ku dhimanaya caruurtii waxa ku dhimanaya ninkarmoodkii waxa ku dhimanaya waxgaradkii marka waxaad moodaa inuu maaragtay uu inagu sii ballaaranayo marka aan ka qayb qaadano sidaan dagaalka u damin lahayn dhalinyarada magaalada Laascaanood waliba videogan daawan doonta waxaan leeyahay ilaahay aan ka cabsano aan arrinka ka qayb qaadan aan dhalinyarada labada beelooda isu keeno dhalinyarada joogta magaalada Buuhoodle kuwa jooga deegaanada ku xeeran gobolka Sool oo dhan kuwa jooga gobolada kale ee Soomaaliya iyo kuwa dibadda joogaba aan ka qayb qaadano bal sidii aynu uga qayb qaadan lahayn ama ay doorkeena uga qaadan lahayn dhalinyaro ahaan in isku eegin dadkeena walaalaha dadkeena abti iyo walaal iyo in abtiga meedhana maalin kasta is gowracay aynu isku eeganin aynu research ka sameeyno iyo qoraallo bal dhibaatada meesha ay marayso inta aqoonta leh gabdhahana waxaan ugu baaqayaa iyagana colaadaas timinteeda inay ka qayb qaataan gabdhaha magaalada Laascaanood waxaa runtii aad iyo aad loogu ammaanaa wanaagga iyo diinta walaalayaal ammaanta la idin siiyo ka dhabeeya oo u istaaga oo ilaahay dartii u istaaga inaad idinkuna aad dumarka ka dhex shaqaysaan oo aad nabdataan haddii aynu nabadda Laascaanood ka bilowno way faafaysaa waxaa la yiraahdaa cudurku waa uu soo boodaa caafimaadkuna waa uu soo dhutiyaa marka nabadda haddaynu Laascaanood ka bilowno haddaynu dhalinyarada isu keenno haddaynu haweenka isu keenno odayaasha isu keenaan maalinba maalin step maalinba tuulo la tago maalinba miyi la tago arrinku waxaad moodaa inuu markaas soo dhawaan doono marka waxaan idin leeyahay aan arrinkaa isu taagno ilaahayna abaaraha iyo colaadda iyo talaxumada iyo tafaraaruqa dhammaan waxaas ina haysta ee deegaankeena haysta waxay ka imaanayaan waxyaabaha aynu sameynano waxyaabaha dadkeenu ay sameynayaan waxyaabaha beelaheenu ay sameynayaan waxaas oo dhan ka imaanaya marka in ilaahay talada inoo wanaajiyo ilaahay roob ina siiyo ilaahay madaxda inoo wanaajiyo ilaahay dhalinyarada inoo wanaajiyo dumarka inoo wanaajiyo waxaas oo dhan waxaynu ku helanaa inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqono inaynu iskaashano inaynu xumaanta ka hortageeda iska kaashano inaynu wanaagga fidintiisa iyo ballaarintiisana iska kaashano waan idin salaamayaa waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idin salaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala roob hayna siiyo ilaahay abaarta haynaga soo jabiyo
ilaahay ummadda Soomaaliyeed abaarta ha ka jabiyo ilaahay inaga abaarta iyo colaadda iyo tala la'aanta iyo tafaraaruq intaba ilaahay ha inaga dulqaado waad mahadsantihiin waa magacaygu Anwar waan idin salaamaya